waxaan soo dhaweynayaa waftiga uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada iyo saynisku Ismaan Jaamac Aadan iyo garbihiisa la socda waxaan leeyahay marka soo dhawaada gobolku waa gobolkiinii waa gobolkii awoowayaasheen soo dhawaadaan idin leeyahay maanta waa farxad gaar ah waxaan hambaliyo iyo tahniyad iyo farxadda la qaybsanayaa ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Sanaag ee ka kooban 3 kuleedood 2009 ayaanu jaamacadda Sanaag University ka bilownay aniga iyo rag kale oo maanta aan inala joogin guri ku yaala magaalada bartankeeda jaamacadda 2 sano ayaanu ardayda wax u dhigaynay oo aan ku faani karo waxaanu gaadhsiinay meel ay wax la qabsan karaan jaamacadaha kale aniga maanta wixii sharaf ah jaamacaddii aanu maalinta aasaasnay halkana 2011 u soo wareegtay inay 5 dafadooda ay ka baxeen waa guul waa sharaf waa ammaan ay leeyihiin dadkii ku soo tabcay iyo dhammaan dadkii taageerayba waxaa mahad ah oo ilaahay loogu mahadnaqayaa munaasabadan sharafta leh ee sharaf aqooneedka ah ee halkan aynu isugu nimi ciday noo soo abaabushay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashadu uu ku jiro iyo dhammaanba baalaha uu ku duulayo ee wafdiguna ka mid yahay horta iyaga aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardada halkan ka qalin jabisay ee 3 qaybood u kala jabisay ee looga ah iyo caafimaadka iyo ICT-da aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan ugu hambalyeynayaa waalidkii waxaan ugu hambalyeynayaa macallimiinta waxaan ugu hambalyeynayaa maamulka iyo guddoonka jaamacadda cid kastoo qayb ka qaadatayna waan ugu hambalyeynayaa waxaan kaloo ku darayaa oo dardaarana waxa weeye aqoonta aad barateen waxa dadka kale waxa kaga duwantihiin waa inay idin ogaataan oo meel kasta idin joogtaan ama xafiis ahaato ama ha ahaato meel publiga waxa weeye idinka ayaa u aqoona meel kastana wax la rabaa aqoontii aad barateen inay ummadda ku kala hagtaan oo wanaagga ku fartaan oo xumaanta ka reebtaan oo aydina haataan safiiro wanaagga xumahana reeba ayaan aad iyo aad idinkula dardaarmayaa أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم محد إلهي كبعدي أرضي قلن شبيسي وحنا عادي عادي كوان بلينا قلن شبيتها وأنا كنت وحوي علمه إنه أما جاري عد لجوه هرا أما جور فوق غير لجوه هرا معها وحوي ورتر هاي بريتيسك كواد نفترض كل سمين الساعة علمه جوا إنه وارد كده ولا تكيب بلا علمي هرت جبي جبا وإنه تشينج مادة تشينج كاسنا معها إن الدقائق كلي وفكرنا وحوي علم جوا طبقات لا إمك أنت إنه حساب براني طبقات لا أنت كيرس وحكيليه أول طبعا كروي إنه أنا كرنو حلو كفى إنه وحي اللي جنب حي وحى أنت بدل ما دعوه صوبت رواه محي لما طبقة يقول لكن علمية وين كوسة قيسنا وين كوسة قتجية لكن برينا كده له إنه وحكوسة صارنه إنه وحكوسة كردنه هل كان دينكم ممكن كان يحكوا ضري إن تشينج الدنيا ده حكب بدله برضو عرقاب وحكب بدله الدنيا كله هينوضم بيسه إنه عرقابه وحكب بدله أي نفهم تكون فكرنا أول ما قفك نفتيسه أكون فكره إنه كوب بدله تاس وتكلم لبعض ويدي دعينا وحوي وحكوا له دعينا إن الله عندك قيم قاعدتهم تي وضع عرقاب هذا هو دعيان يعني وحوي وضع عرقابان يدا وضد الكترين وصامرة إما كانوا صامرة ووحي إلهي لقوم هذيو شكر جناب بديع وحوي وضع حدي سياها جاكتو وحير إنه نشرب ماشى وكبر حياة ده وحنا نقول صعبة إن الله سوكر شقات تجبر عي عرقابه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu isku nimid inaynu la faraxno oo u tahniideyno oo la damaashaadno ardayda halkan ka qalin jabisay iyo waalidiintooda ku soo tacabtay intaasi waxaan idin leeyahay hambalyo
idinka iyo waalidiintiinaba waalidiintu haddii aanay gacanta iyo idin haynin halkaa ma idin soo gaadheen idinkuna dadaal badan baa muujiseen labadiinaba hambalyaan idin iyo macallimiinta wax idin bartayba waxa weeye waxbarashadu horta waxaa bilowdeen halkii u horreysay ee shahaado jaamacadaha ka qaadateen laakiin waxbarashadu intaa kuma dhammaato iminkunba albaabkeedii gasheen waxaa la doonayaa in horta mid weeyaane waxbarashadu ay wax idinka beddesho maskaxdaada inay beddesho sidaad u shaqaysanaysa iyo dee waxaa ku soo gelaya inay ka roonaadaan intii hore in halkii noo baahanba aanu tagno iyo wafdigeygana aanu ku nimid waa waajibna saaran waa waajib dowladda ay leedahay weeyaan scholarshipskii berigii dhaweyto dowladda Ethiopia na siisay 450 qof iyay siisay dadka shahaadada koowaad doonaya 8 waxay siisay jaamacadda shahaadada labaad intaba si siman iyo gobol walba percentage-kii qaybtii uu ku lahaa la siiyey tion loo kala eexanin qaarna hay-adaha la siiyey qaar jaamacadaha la siiyey sidii ay u qaybsamayeen oo hagaagsan ayaa loo qaybiyey waxay ka mid tahay tayeynta waxbarashada iyo waxaasoo idin ka mid yihiin la hagaajinayo fariintan idin fari lahaa waxaa weeye wixii aad barateen ummaddiina wax ugu qabtaa wax kaga bedela